ciidamada Israa'iil oo xasuuq ba'an ku geysanaysa dabaabadaheeda waqooyiga Gaza. Kooxda Al-Qassam oo beegsatay 110 dabaabadood oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil 52 maalmood oo la soo dhaafay. Xoghayaha Mareykanka ninka lagu magacaabo Anthony Blinken ayaa sheegay inay jiraan heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil. Daawadayaal, intaasi waa warkeennii oo kooban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan isagiyo fidsan. Kooxaha lagu magacaabo Al-Qassam garabkeeda dhaqdhaqaaqyada al-Islaamiya oo xasuuq ba'an oo ay la beegsadeen dabaabadaha ciidamada Israa'iil oo ka dagaalamaya waqooyiga Gaza. Weli kooxaha iska caabinta reer Falastiin waxay ka wadaan dagaal aad u ballaaran kaas oo ay kaga soo horjeedaan cadowga Israa'iil ee waqooyiga Gaza. Laga soo bilaabo 5 Oktoobar ee sanadkii tagay ayagoo weli go'doon saaran yahay aad u daran iyo gantaalada Israa'iil kaasoo aan kala joogsi lahayn habeen iyo maalin. Waxaa intaa u sii dheer diyaaradaha duulaya hawadooda taasoo la beegsanaysa gantaalo iyo rasaas, sidoo kalena dilaysa dhaqdhaqaaq kasta oo ay dareento. Diyaaraddaas oo micnaheedu ay tahay shakhsi kasta oo socda dariiqooyinka Gaza inay toogato. Sidoo kale waxay kooxaha iska caabinta reer Falastiin ku guuleysteen inay fuliyaan tobanaano weerar oo ay ku wiiqayaan ciidamada Israa'iil dhaqdhaqaaqyadooda. Bartamaha dagaalka ka socda iyo warar ay soo gaarsiiyeen ciidamada dagaalamaya iyo sawirro ay la soo wadaageen kooxaha Al-Qassam bilowgii howlgalka dagaalka waqooyiga Gaza inay kooxaha Al-Qassam ay beegsadeen 54 dabaabadood oo Israa'iil ay leedahay iyo 27 xamuulada qaada ciidamada, 26 baabuurta ciidanka, 3 jiib oo kuwa loo yaqaan Hamra, intaas oo Al-Qassam ay la wadaagtay shabakada Al Jazeera. Sida laga soo wariyay Al-Qassam waxay sheegeen in dagaalyahanadoodu inay fuliyeen 40 weerar dabaabadaha Israa'iil inay ku garaaceen gantaalada lagu magacaabo Al-Yaasiin 105, 39 miinooyin iyo 13 weerar oo ay u isticmaaleen gantaalada lagu magacaabo Tandum. Kooxaha dagaalamaya oo lagu magacaabo Al-Qassam waxa ay ciidamada Israa'iil isku heleen sida degmada Muqayyim, Jabaliya iyo degmooyin kale. 5 Oktoobar ee sanadkii tagay ciidamada Israa'iil waxay bilaabeen inay ka hortagaan gudaha Gaza. Sidoo kalena ay mamnuucaan kooxaha ka dagaalamaya Gaza inay marnaba ku soo laabtaan kooxaha dagaalamayaasha ah awoodoodu. Gudaha Gaza oo ay Falastiiniyiintu ku nool Gaza ay leeyihiin in Israa'iil ay doonayso inay qabsato ayna ka dhigto degaan ay leeyihiin Israa'iiliyiintu. Israa'iil ayaa iyadu waxay aad u doonaysaa inay gebi ahaanba la wareegto Falastiin iyadoo markaasi garab iyo markaasi gaashaanba ka dhiganaysa ciidamada Mareykanka iyo dowladda Mareykanka oo markaasi ayagu taageero buuxa u muujiyay Israa'iiliyiinta. Laga soo bilaabo 7 Oktoobar ee 2023 waxaa halkaasi ku shahiiday in ka badan 146,000 oo Falastiiniin ah iyo tiro ka badan oo dhaawac Falastiiniin ah, kuwaasoo u badan caruur iyo dumar, sidoo kalena 10,000 oo aan lagu haynin nolol iyo geeri, kana hooseeya burburkii ay Falastiiniyiintu u geysanaysay duqeymaha dhismayaasha iyo markaasi wixii kale oo la halmaala. Daawadayaal, intaas waxaan ku soo koobayaa wararkii ugu dambeeyay ee Falastiin oo isugu jiray dhacdadii maanta iyo weliba tii hore. Intaan warkan kiisa xiga dib ugu kulmayno, aniga iyo asxaabta Duxi Media oo isku xiran waxaan idinkaga tagnay sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir, haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay.